السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلته وعل ولكسل داودياشا قيبها قدرلتا يقايها اللي قمدلو ميلو البواد جوگتالي مرحلة البواد القدا وليسال وحيلو هودي دي كليلها وقتقو هيدي ولكسلادو waxaynu halkan idinkula wadaagaynaa qisada guusha lil ka soo bilaabay ka shaqeynta kaalin shidaal laakiin ugu dambeyntii dhisay shirkad weyn oo mansab iyo maamuus kala dulida waa ninka lagu magacaabo Du Won Jan oo asal ahaan ka soo jeeda koonfurta Kooriya sideetamaadkii ayuu gaaray Mareykanka xilligaasi oo Kooriya sida ay maanta tahay ma aysan lahayn oo waxaa yaraa fursadaha shaqo sidoo kale lama hel haddii uu Mareykanku gaaray inuu lugaha iyo gacmaha la galiyo lacag balse waxa uu ku qasbalaa inuu saacado badan ka shaqeeyo shaqooyinka yaryar si uu noloshiisa ugu daboolo waxa uu yaraan uu ka shaqeeyay 3 shaqooyin oo yaryar waxaana ka mid ahaa kaalin shidaal waxa uu arki jiray in ragga gawaarida quruxda badan wata ee shidaalka uu u shubayo in ay badalaaba ka shaqeeyaan shirkadaha dharka taas oo sababtay inuu ku fikiro inuu sameesto dukaan yar oo dharka lagu iibiyo lacag yar oo shaqooyinka adag ka soo xareeyay ayuu galiyay dukaankii dadaal badan iyo shaqo adag kadib nasiib wanaag ganacsigiisii waa uu guuleystay isaga oo sanadkii ugu horeeyay uu iibiyay dhar qiimihiisa uu ku kacayo $700,000 intaa kaliya kuwa uu salakaan waxa uu ku sii balaartay dhinaca iyo dukaamada dharka waxaana uu asaasay shirkadda Forever 21 oo caan ka ah Mareykanka iyo qaybo badan oo ka mid ah dunida ninkii kaalinta shidaal ka shaqeyn jiray hadda waxa uu shaqeeya 45,000 oo qof waxaana uu leeyahay 800 oo xarun oo ku taala 48 dal oo ku kala yaala daafaha caalamka haddaba haddii aad wax ka faa'iido muuqaalkan oo ku xiiso galiyay laag ilo saar si la sheer garay wixii talo iyo tusaale ah oo aad jeceshahay inaad la wadaagto iloogu dhaaf qaybta hoose ee commentiga mahad sanid